laba wiil oo Soomaali ah oo walaalo ah oo xaafidul Quraan ah oo xalay salaada taraawiixda ka tujiyay masaajidka At-Taqwa oo ku yaala magaalada Kansas City ee gobolka Missouri ayaa waxa dilay sida wararka qaar ay sheegayaan walaalkood ka weyn oo 20 jir ah kaasi oo markii dambe caawa booliska toogtay si aan faahfaahin arrimahaasi oo dhan aan uga helno waxa qadka telefoonka aan kula xiriiray imaamka masjidka At-Taqwa Sheikh Mustafa soo dhawo marka hore marka xiga xalay sida wax u dhaceen dadka waan dhawahay xalay waxay wax u dhaceen wiilashu ninkan labadan habeen u dambeysay waa imanayay masjidku imanayay maanan ogeyn annagu kamaana warqabin laakiin waxa laga sheegayay inuu dad layn doono oo maaragtay khaasatan masjidkan inuu dad layn doono xogaad waxa kale oo laga sheegay inuu yiri diintan fake weeye wadaadaduna been bay sheegayaan oo been bay dadku sheegaan hadalla saasa liiga sheegay maanan ogeyn annagu inuu nin cuduraysan yahay oo cuduradi ay ku jirto oo diinta islaamka oo araysan ma aanan ogeyn inuu yahay laakiin arrimaha saaka ay soo gaadheen kolkii wiilasha labadan yarkee walaalihii oo xufaad oo dadkii masaajidda tukinayay ah markii la soo qaaday wiilkii soo qaaday wuxuu yiri markii hore waan sugi jiray ilaahay qadarkiisa xalay kolkaan albaabka dhigay wiilasha midna 16 jir buu ahaa waxaan maraykan kalena 14 jir miya ayay ahaayeen rag oo adeeraga weyn iska ahaayeen oo maraykan 14 jir ilmaha ay maraykan waa qof weyn amal oo kale marka saadan albaabkii kolkaan soo dhigay iska dhaaqay wiilashu markay garaacayaan ilaa meel albaabka agtiisa u gabanayay wuxuu soo qaaniga Cabdiwaahid la yiraahdo aad u nacbaa leeyahay qaariga furaanada guudan qaba aad maaragtay quraankiisa aad maanta meel badan la soo galiyay ayuu madaxa kaga bilaabay wiilashu markaa saddex bay ahaayeen Cabdiwaahid iyo Cabdiraxmaan iyo nin Zubayr la yiraahdo oo yaro isagu 10 wax jira 10 meelaha jira markuu madaxa kaga bilaabay xabadii marka wax badan buu ku waday wiilka maskaxdiisa wiilka darbiga ay ku firidhay xabadaha intoodii badna wiilkaas ku dhameeyay walaalkii Cabdiraxmaan buu kula soo jeestay isagana madaxu kaga dhuftay dhowraalo soo saadhay madaxu kaga dhuftay markaasuu kii yaraa albaabka xoog u garaacay furay asaguna halka wuxuu galay uu cabaysanayay albaabkii in la furana wuu rabay reerkana uu gumaado wiilasha aaboodii hooyadood hore bay u dhinteen waxa gacanta ku haysay eedadood xamdi gabadh la yiraahdo eedadooda gacanta ku haysay oo wax bartay oo aad iyo aad quraanka ugu dadaali jirtay aad iyo aad juhdi aad iyo aad u weyn ku bixisay aad ilaahay waxaan ka rajaynayaa ilaahay uu gabadha sabir siiyo aad bay gabadhu isku dardarsantay baa hadda la igu leeyahay waxaan waa qadar ilaahay marka dadku ku siiyay kii kale ku siiyay yarkii albaabka fag laga siiyay asagoo qaray albaabkiina ka xidheen warti gurigii laga xidhay asagoo xaggu isaga dhaqaaqay marka wiilashii meeshii bay ku dhinteen intaas xalay dhacday waayahay marka wiilkii kale ee dhibka geystay isaguna waxa la soo warinayaa in caawa ay booliska dileen bal arintaasi iyaduna faahfaahin laga sii anu maba ana ogeyn kolkii hore inuu guriga agtiisuba deganaaba guriga dhankiisa ah ayuu deganaa marka wada yar baa noo dhaxaysa wadadii bay maanta isaga naftiisu malag baa waday Soomaalidu meelihii oo dhan ay maqaaxiyadii suuqiya waa la wada xidho ninkii wax baan dili oo Soomaalidan layn buu yiri oo yaa la isgaarsiiyay arrinta markii la isgaarsiiyay Soomaalidu meelihii furaa oo dhan inta badan way xidheen maqaaxiyi waa la xidhay maqaaxiyi kolkii hore way xidhnaayeen laakiin suuqyadii baa yaa la xidhay markii suuqyadii la xidhay meeluhu socday maarkii wadooyinka ah silaan eedadii abu gurigeedii ag maray iyadoo taagan buu arkay xabaduu ku garaacay
ilaahay baa garab mariyey markaasuu dibeetana casarradii casarkii markay tahay baa nimankii booliiska ahaa heleen nimanka way suudgareeyeen isaguna wuu ku riday ma aqaan inuu iyo wax ka yeelay oo wax ka dhaawacay ma garanayo laakiin madaxa laga toogto oo ninkii oo officerka ah baa toogtay oo madaxa ka toogtay marka xabadaas ku dhacday markii hore dhaawac baa lagu qaaday marka waxaan u maray isbitaalku ku dhintaa filaya intaas dhacday marka goormee ayaa la qorsheenayaa in wiilashii xal geeriyooday iyo kan caawa geeriyood la aasayo weekend baa soo galay weekendigu markuu dhamaado isniinta baa la ogaan goortii oo maaragtay ay soo fasaxaan wiilasha yararkan inta badan waxaa laga yaabaa in maaragtay waa la qalqali oo wax in lagu sameeyo waa suurtagal laakiin goortay fasaxaan baa la arkay wararka qaar ayaa waxay sheegayeen in wiilka dhibka geystay oo 20 jirka ahaa oo maanta booliska ay toogteen in dhanka maskaxda lagu jiray marka arintaasi maxaa ka jira ardaygu waa aan jiro meeshan masjidka uu arday ka ahaa oo muddo dheer arday ka ahaa quraanka inuu dhameeyay waan u malayn marka kabacdi baa in korkii hooyadii dhimatay ee masaa'ib ku dhacday marka adigu waa meel dhibka uu ka dhacay marka hooyadii hore dhimatay kabacdi ayay masaa'ibtu ku dhacday marka wuxuu noqday u shaqaysan jiray laakiin waxaan u malay inuu daroogada isticmaali jiray saas aan filayaa hooyadiis sidoo kale markay dhimatay aad bay u qabsatay magaalada aad degan tihiin dhacdadaasi dad badanna way ka naxeen qaab ceenkee ayay u dhimatay hooyadiis walaal deeqo arrinta inaan ka gaabsadaan jeclahay waa arrin aad maaragtay nafta ay way xsanayso marka aad waxaan u jeclahay deeqo inaan arrinta ka gaabsado way ugu dambeyntii marka xaaladda magaalada Kansas City ee gobolka Missouri Soomaalida ku nool waa sidii hadda wallahi murug weyn baa jirta labada wiil ee yararka oo dhalinyarada xafaada oo quraanka ilaahay wax lagu dilay aan kasbanin dambina aan sameeynin masaajidkii ummadda hortaagnaa ee tukinayay qiraadoodii iyo loo bogay ee yaryarka ah wiilashaas dilkoodu meel aad iyo aad weyn dadka ka gaadhay laakiin isla markaana haddana dhibka waxaa keenay waxa laayay waa walaalku sheeg iyo walaalkooda marka arrintaasi aad iyo aad bay anaga maaragtay community ahaan aad bay noo dhibtay laakiin qadarkii ilaahay baa in lagu sabraa waajib ah waa tahay daawadayaalkaasi waxa uu ahaa Sheekh Mustafa oo ah imaamka masjidka At-Taqwa ee magaalada Kansas City ee gobolka Missouri ee dalka Mareykanka oo dhacday igu waramayay Sheekh Mustafa aad baad maasan tahay aad baad maasan tahay